daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa warkii shiilaa ee aad nooga barateen maanta waxaanu ka hadlaynaa ereyga la yiraahdo money laundering oo macnihiisu yahay sida lacagta tuugada ah ee la dhaco loo xalaaleeyo ama lacag dhaqniin marka af Soomaali lagu turjumo ama lacag la mayrayo oo taa macnaheedu yahay lacag marka hore tuuga ku timi oo la doonayo in ummadda la soo dhexgeliyo oo lagu shaqaysto qasdiil amwaal ayaa afka Carabiga lagu yiraahdaa waa dirty money marka taariikhdeeda la eegayo waa lacag wasakhaysan oo xaaraana oo ummad laga soo dhacay sharciga lagaga hortagana waxa la yiraahdaa marka arrinta caalamka ka hadlayno ama global standards sida adduunyadu aragto anti money laundering cashuurta ama tax aviation in laga cararo in la bixiyo cashuur ayaa ka qayb ah lafteedu arrinta la yiraahdo lacag dhaqista markaad kelmadda maqasho money laundering ama lacag tuuga ah oo la xalaaleynayo markiiba waa inaad garataa inuu meesha dambi ku jiro oo criminal act ay tahay arrin dhac iyo boob iyo burcadnimo ku salaysan in badan ayaa caalamku kala qaybiyaan inkasta hadhowto u soo degi doono arrinta Soomaaliya iyo sida ay isu qabato arrinta la yiraahdo lacagta la xalaaleeyo ama money laundering xaaraanta ummadda laga dhacaa trafficking ayaa kamid ah ummadda la tahriibiyo lacagta laga qaato ayaa kamid ah drugska maandooriyaha ayaa kamid ah hubka qayb sharciga ah ee weaponka la yiraahdo ee meel kasta Soomaaliya ka soo gala lacagta ka soo gasha ayaa kamid ah briberyga laaluushka la qaato ayaa kamid ah corruptionka musuqmaasuqa iyo eexda lacagta lagu keeno ee ummadda laga qaato cashuurteeda iyo caawimadeeda ayaa kamid ah counterfeit lacagta la yiraahdo waraaqaha la soo samaysto ee aan ahayn asalka ee aan waxba ka oolin dahab deposit ka oonil IMF ku ogeyn World Bank aanu ogeyn wadan kale oo jaarkaaga aadan waxba kaga soo iibsan kareynin inta la daabacay aadan ogeyn halka laga soo daabacay aadan ogeyn taas oo ah ta ugu badan ee Soomaali baabisay ayaa kamid ah counterfeit ka waraaqahan iminka ummadda lacagtooda lagaga boobay ayaa kamid ah global standards kana marka qofka lagu qabto isagoo waraaqaha soo samaystay 14 sanadood oo xadhig ah ayaa la geliyaa waxaana waa laga gubaa adduunyada aynu maanta joognana 1.6 trilyan ayay sanadkii khasaaraysaa inta aynu ka soo wada hadalay ee money laundering ah ama lacagta xaaraanta ah ee la xalaaleynayo Soomaaliya markay burburtay ninkii u horeeyay ee lacagta foolsada ah soo samaystay ina Xaaji Ibrahim Cigaal ayuu ahaa ee ugu bilaabay waxa la yiraahdo shilinka Somaliland ee la doonayay ummadan meesha ku nool in arigaagii iyo geelaagii iyo dhulkaagii iyo gaarigaagii iyo kalluunkaagiiba lagaaga iibsado waraaqaha xaaraanta sharciyan u ah diiniyana xaaraanta u ah ee aan meel laba ku salaysan aanu dahab wakiilka ka ahayn aanay dawladda wakiilka ka ahayn lacagtii Soomaaliya Deutsche Bank Germany ayaa wakiilka ahaan jiray oo ka dhigay dahabka markaanu amaahda galayna waa tii laga bedelay serial numberka lagu qoro ee loo bedelay khadka cas waxa kaga dayday oo isla markiiba soo samaystay ninkii Cali Mahdi waxa kaga dayday Cabdullaahi Yuusuf oo isla lacagta soo samaystay wana lacagta ummadda Soomaaliyeed maanta halka dhigtay ilaa maantana ku shaqaysa kuwii ka dambeeyayna trillions ay soo samaysteen Puntland baa samaysata iyaga samaysta tujaarti koonfurta madaxdii koonfurta joogi jirtay oo dhan baa samaysata lacag marka lama yiraahdo waa counterfeit waxa weeyaan tuuga cad waxa ku dhaantay qofka isagoo wixiisa sidiisa looga qaado aan waxa lagaga bedelan way meel allaana iyo meel kale oo ay wax ka qabanaysaa ma jirto dollarka dibadaha laga dirana lacagta ayaa lagu bedeshaa ilminkana waxa lagu dhex sameeyaa meesha Puntland la yiraahdo iyo waxa lagu dhex sameeyaa meesha Hargeysa la yiraahdo meesha bangiga dhexe la yiraahdo anoo gadaal idiga sheegi doona arrintan waxay maalintii dhowto ay ka lahaayeen Baghdadi iyo ninka ina carwo la yiraahdo arrinta dambiga ah ee criminalka ah ee money laundering ah saddex dariiqo ayaa la mariyaa si dadka loogu sharciyeeyo loogagana boobo caalamka kale de kama dhacdo haday ka dhacdo waa la isku qabtay waxaan ka hadlaynaa tacaadiga ee laga soo shaqeysto ama maandooriyaha ama lagu kala qaato corruptionka ama cashuurta laga hado saddex baa la mariyaa tani iyadu kubaba jirto in horta Allah waa qadciyan marka halka lagu arko ayaa lagu qabtaa laguna gubaa 14 sano lagu xiraa waxa koobaad keenta waa layering waa in lacagta ay qaybiyaan dadkaasi ay xaaraanta ku keeneen si aan iyadoo buuran meel loogu wada arag ta ku xigta waxa weeye integration in la dhexgeliyo meelo business ah oo sharciya oo ay ka soo baxaan oo waxba aanay ka soo baxayn ee lagu xalaaleeyo ama lagu mayro sida afafka qalaad loo yaqaano hadhowna guryo gawaadhi dhul beero degaan Dubai oo guriga lagaga soo dhisto la sameeyo inaga tan la inagu sharciyeeyay ee caalamka kale xaaraanta ka ah ee dhex wareegaysa ee waraaqaha ah ee lacagta lagu sheego ummadana waxay lahayd oo dhan ayaa lagu la wareegay oo lagaga dhigay in lagaga qaato wax aan waxba jirin marka waa scam waa khiyaano weyn oo aanay ummadani inta ay nooshahay ka soo waqsanaynin
sababaha laga dhaxlaa marka waxaasi wadan dhex yimaadaan ama system maxay tahay waa fakhri waa gaajo waa macaluul waa cudur waa aqoon daro waa shaqo la'aan waa isku kornoolaasho waa system mafia oo kugu kor abuurma waa dad mafia oo kugu kor ciidanooba waa musuq maasuq waa maxkamad la'aan waa sharci la'aan waa baarlamaan la'aan waa intaas meel ay ka jirtaba counterfeit ama waraaqa la soo sameeyay oo aan meel la cid ka mas'uul lahayn lama keeno waa qaxoonti dhalinyaradii oo dhan nin waliba gobolka uu ka yimi ha u qaato oo ha ku eego waxaan sidaa uga shaqeeyaan laakiin imika waxaan ugu saari doonaa focuska halka jasiirada waaqwaaqa oo ku magac dheeraan jirtay Somaliland u fiirso dhalinyaradii oo dhan Liibiya iyo Suudaan ayay magafayaan ugu xidhayin way gudahoodii ayaa lacagtii u magafihii joogay ee Muuse Biixi iyo Maciisa oo Baghdadi iyo Carwo wakiil kaga yihiin ay ku kor sameynayaan arrinta la yaab kale waxa weeyaan ee meesha ka taaganina waxa weeyaan maalin dhaweyto waxay ka hadlayeen waxaan baarlamaanka ka soo saaray sharci la yiraahdo anti money laundering in laga hortago lacagta xaaraanta ah ee baxaysa iyagii ayaa ah mishiinkii lacagta sameynayay oo bangiga dhexe yaala iyo madaxtooyada kii lacagta lagu qoriyay iyo gobolada kaleba sidee u soo magacaabay marka waxa shii xaaraanta ahayd in digta xalaasha ah laga sugayay meel alaale iyo meel lagaga hortagi kara ma jiro way systemka oo dhan ayaa gabigiisuba system xaroobay ah oo ilaa dusha ilaa hoosta musuq maasuq iyo lacag foolsa ah iyo lacagta la yiraahdo counterfeitka ku salaysan ee ummadda waxeeda lagaga dhaco dadka qaarna cashuurta laga dhaafo qaarna cashuurta lagu saddex laabo marka sharciga la sheegayo waa tii hore ee la rabay in la matalo dadka dawladnimo dibna loogu soo celiyo maadaama fahanteen idinku ummadiinani maanta inaan waxaan lacag ahayn qaadan weydeen oo dadka ay fahmeen waxaan waraaqa la isku dhacay yihiin ayaa doonaya in lagu sharciyeeyo in waxaan sharci tahay ay dawlad ka soo baxday oo lala dagaalamayo anti money laundering oo taa macnaheedu yahay waraaqaha la soo sameeyay ee meesha la wado la rabo in khasab qof waliba uu ku qaato meesha ku magac dheer leh Somaliland ee ex jasiiro waaqwaaq u fiirsada 3.5 bilyan oo dollar oo kaash ayaa soo galay oo waxa lagu bedeshay waxa awma lagu keenay iyo wax cashuur dadka lagaga qaaday waa waxa guryaha iyo deegaanka iyo dhulka iyo gaadiidka iyo beeraha amaanta aragteen iyo guryaha qurbaha laga sameystay iyo baabuurta dheeraysa lagu iibsaday intaas oo trillion waa la idigu kor daabacaya bil walba trillions waa 1 bilyan ayaa lagu kor daabacaa Hargeysa gudaheeda waraaqaha cadcad ee yaala ee buugta wax lagu qoro laga soo gooyo ayaa lagu kor daabacaya ee xaaraanta ah ee mamnuuca ka ah ee sharciyan mamnuuca waana arkaysaan xoogayga dollarka ahaa ee telefoonada la isugu diri jiray wax boqol ka yar la isugu ma diri karayo waayo waa intan suuqa la geliyo sidii berigii horeba suuqa dadka loogu soo geliyay ee lacagta looga dhigay counterfeit kuna waa waxa inta aynu soo sheegnay ee musuq maasuqa leh ummadda u keena aan soo gunaanado haddaanu mar meesha ka jirin law enforcement wax sharci ciidan sharci oo bahasha la dagaalama sida kuwa Mareykanka oo kale ka dhisan ee ARS la yiraahdo maxkamadda madax bannaan ka jirin systemku wuxuu ku dhisay ay tahay fraud corruption musuq maasuq iyo waraaqa la daabacdo iyo forgery iyo falso uu ku saabsan yahay ummadda wax loo baahan yahay in aanay tuugada iyo waxa suuqa la isaga sheegayo ee la leeyahay sharciya loo soo saaray aanay dhageysan ee qofku $100 ee loo soo diro aan taa iskaga sarifin ee uu weydiiyo qofku wax ka iibsanayo dollar sarifa ma haysaa waayo meel kale hadaad la aado cid kaaga wakiila iyo cid wax ku siinaysaana ma jirto inay bulshadu ka digtoonaato in dhulkeeda iyo deegaanadeeda aan lagaga bedelan taa ama ta lagu soo bedeshay ee dollarka laga dhigtay ee lagaga bedelanayo deegaankii ay lahaayeen ee lagaga iibsanayo si loogu xalaaleeyo lacagtii integration loogu sameeyo ay dhulka u gasho waana aad dhalinyaradu ay uga digtoonaataa mashiinadan meesha lagu daabacayo waxa laga soo saaray inay yihiin wax aan meel kale waxba ka soo kordhinaynin sharcina ku fadhiin waafaqsanayna anti corruptionna nin isagii corruptionka sameeya kii lacagta sameynayay tuugada ah ayaa leh waxaan rabaa inaan joojiyo in dadku lacagtii iyagu ay lahaayeen ay kala baxaan airportka $10,000 lacag gaaraysa in marka hore la joojiyo lacagtan waraaqaha ah oo la gubo dadkii lagu dhacayna wixii lagaga dhacay loo soo celiyo muhiimadda aynu barnaamijka u qabanayna waxa weeye dhammaan ummadda Soomaaliyeed deegaan kastay degan tahay inay ka digtoonaadaan qofku inuu xoolihiisa iyo alaabtiisa iyo gurigiisa iyo daarihiisa uu iskaga iibiyo ama lagaga iibsado lacagta aan jirin ee la sameeyay ee xaaraanta ka ah if iyo aakhiraba caalamka meel kasta oo aynu joogno lana ogaado taariikhdeeda halkay ka soo bilaabatay sidaan ugu sii sharaxay imikana ay soo daba gaabanayso waayo caalamka kale haddii ay gaari lahayd waxa ka iman lahaa caaqibo tamaafiyada oo kale ku dhacda
intaa ayaan idigu soo koobayaa arrinta barnaamijkan iswaraysiga ahaa ee aynu ku bayaaminaynay lacagta fuulsada ah ee dhex wareegaysa deegaanada soomaalida nooli kulantee dhammaantiin waa mahadsantiin